iyadoo maalintii labaad isla markaana u dambeysay shirweynaha xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa maanta la doortay hoggaanka hogaamin doona 4 sano ee soo socota xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland haddii alla yiraahdo. Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha Soomaali Galbeed iyo xubno la socday wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, guddida doorashada xiriirka kubadda cagta Somaliland, musharaxiinta u tartamaysa codbixiyaasha iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa doorashada xiriirka ciyaaraha Somaliland. Labada musharax ee u tartamayay xilka gudoomiye ayaa waxaa madasha ku sugnaa hal musharax waana musharax Fuaad Axmed Cali. Sidoo kale labada musharax ee u tartamayay xilka gudoomiye ku-xigeen waxaa madasha ku sugnaa hal musharax waana musharax Khadar Xuseen Jilaal iyo 3 xubnood ee ay wateen. Waxaa dhageysiga khudbadaha musharaxiinta kadib si toos ah loo gudagalay doorashada oo u dhacday hab gacantaaga iyadoo musharax gudoomiye Fuaad Axmed Cali ay u codeeyeen 750 xubnood isla markaana hal xubin ka aamustay wax diidayna aanay jirin, sidaana uu ku noqday gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland. Sidaas oo kale ayaa Khadar Xuseen Jilaal waxa isagoo u sharaxan xilka gudoomiye ku-xigeen u codeeyay 750 xubnood waxa ka aamusay hal xubin wax diidayna ma ay jirin, sidaana uu ku noqday gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Somaliland. dhinaca kalena musharax Khalid Maxamuud Abubakar ayaa ku guuleystay xubinimada xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland. musharax Khalid Maxamuud Abubakar ayaa helay 57 cod waxa ka aamusay hal cod, cid diiday ma ay jirin, waxaana uu sidaas ku ansaxay xilka xubinimada xiriirka kubadda cagta Somaliland. musharax Maxamed Yuusuf Xaaji Cabdikariin ayaa ku guuleystay xubinimada xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland. musharax Maxamed Xuseen Xaaji ayaa helay 57 cod waxa ka aamusay hal cod, cid diiday ma ay jirin, waxaana uu sidaas ku ansaxay xilka xubinimada xiriirka kubadda cagta Somaliland ee uu kaga mid noqonayo. musharax Samaroon Cabdilaahi Cilmi ayaa ku guuleystay xubinimada xiriirka kubadda cagta Somaliland. musharax Samaroon Cabdilaahi Cilmi ayaa helay 58 cod, cid ka aamustay iyo cid diiday ma ay jirin, sidaana ku ansaxay xilka xubinimada xiriirka kubadda cagta Somaliland. hambalyo hoggaanka sare ee xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland ee 4 sano ee soo socota hogaamin doona haddii alla yiraahdo. Axmed Taye Qaran, wararka magaalada Hargeysa.